kulanti wacan oo wanaagsan dadkana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal barnaamijka aan maanta halkan idinku hayo ayaa waxa uu yahay waraysi ku saabsan cadaaladda maxkamadaha maamul goboleedka Puntland iyo waliba fulinta xeerarka ciqaabta ee dambiilayaasha dhacdada waraysigan uu ku saabsan yahay oo iyadoo dhacday bishii afraad 26keedii sanadkii 2009 ayaa markaas waxaa lagu dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Karkaar marxuum Yaasiin Saciid Xuseen gacan ku dhiglayaashii dilkaasi geystay ayaa maxkamad waxay ku xukuntay aan ilaahdee dil toogasho haddaba tan iyo haatan ayaa waxaa jirta inaan dilkaasi la fulin oo aan la dilin nimankii iyagu markaasi dilay marxuum Yaasiin Saciid Xuseen waa maxay sababta gacan ku dhiglayaashaasi loo dili waayey iyo arrimahaasi sida u dhaceen ayaa waxaan ka waraystay Baashe Saciid Xuseen oo isagu la walaalaha marxuumkii Ilaahay ha u naxariistee Yaasiin Saciid Xuseen Baashe oo arrimahaasi inooga warrama waa kan بسم الله الرحمن الرحيم سؤال بدي ويديسي maxaa loo dili waayay ilaa xilliga waxa loo dili waayay waa cadaalad darrada ka jirta maxkamadaha Puntland waata baasho marka ugu horeysa bal waxaad ii sheegtaa sida marxuumka gudoomiyihii hore ee gobolka Karkaar lagu dilay dhacdadu sida u dhacday bal iiga sheeka in yar okay dhacdadu waxay u dhacday 2009kii ayaa waxa isku dilay tuulo la yiraahdo Dhudhub area-deeda ee kamid ah gobolka Karkaar laba beelood oo walaala ah kadib maadaama walaal Allah u naxariistay oo ahaa gudoomiyihii gobolka Karkaar isaga iyo odayaal iyo rag kamid ah baarlamaanka mas'uuliyiin ayaa aaday meeshii si ay arrinkii u dhaxgalaan maadaama ahaa mas'uulkii ugu sareeyay gobolka waata meeshii markii gaadheen shir baa loo fadhiyay muddo joogan adigu ilaa week ku dhow adigu gabagabadii arrinka Allah u naxariistay maxrimku uu ku soo guuleystay gabagabadii uu doonayay inuu soo ambabaxo oo uu dhex fadhiyo waxa lagu qiyaasaa ma joogin goobta ragga fadhiyay marka odayaasha nabadoonnada iyo dad badan baa almuhiim isugu yimid meesha nabadna waa laga shaqeynay isaguna nabadda ayuu ka koow ahaa ama isaguna nabaddu ka koow sida loo dilay waxa loo dilay casar goor tahay 26kii bishii afraad 2009 way ayaa gaari wuxuu soo istaagay laba guri dhexdood meeshii fadhiyeen way kadibna rasaas bay oo ka soo qaadeen laba nin baa labada daaqadood laba qori kala baxay toos bay waxay u soo toogteen maxruumka Allah yarxamo dil loo qasdayay ama markaas loo qoondeeyay ninka lagu dilay bareer oo waliba qorshaysan buu ah oo qorshaysan oo ragga dilay ay yihiin rag waliba la soo diray xaqiiqi ma la qabtay nimankii Allah yarxamo markii maxruumka xabadu ku dhacday wuu dhintay wuu dhacay kadib markii la ogaaday inuu maxruumkii dhacay dadkii de rasaas la soo furay wad garanaysaa dadkii habaabiro la arkay maxruumkii inuu meediyay staff buu watay maadaama gobolka barasabkii gobolka way staffkii sibaa ka daba tagay 40 kilomitir meel u jirta ayay ka soo qabteen nimankii maxruumka meedkiisii iyo gacan ku dhiglayaashii oo la isku wada la keenay gobolka Karkaar magaalo madaxdiisa Qardho way maxkamad ma la soo taagay ha ma qirteen ma lagu cadeeyay in dilka iyagu ay geysteen waana qirteen waana lagu cadeeyay labadaba maxay ku xukuntay maxkamadda markaa xilliga maxkamadda darajada koowaad oo waliba lagu xoojiyay shariicada islaamka oo uu hogaaminayay Allah u naxariistay ninkii la dili jiray Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax Gacami baa waliba la joogay oo xukunka wax kaga jira iyo ku xigeenkiisii maxay ku waxa lagu xukumay dil toogasho way markii la dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Karkaar mas'uuliyiinta Puntland ma jirto cid ka soo qayb gashay ama aaskiisii ka hor dhacdadan markii ay dhacday soo booqday magaalada Qardho oo arrinkii dhexgal oo eegay yaa ka hogaaminayay madaxweynaha dawlad goboleedka maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroon way markii la qabtay dil lagu xukumay xabsiga la geeyay maxaa ka dambeeyay maxaa dhacay markii ka dambeeyay waxa dhacday xeeraraliyaha guud warqad anaga intii familkii ahayd ama xaqlayaashii maxruumku wuxuu ka tagay 4 xaas iyo 12 caruur waata 12 waxa uu weynaa beriga Sharmaarke Yaasiin Saciid oo 14 jira kadib waxay codsadeen intii dhaxlayaasha ahayd oo xaq lahayd in loo qisaaso maadaama shariicadu xukuntay
dul toogashaa ku xukuntay in la dilo nimankii ha waa tahay mudday joogtay lama dilin nimankii anigu 2010kii bishii koowaad kowdeeda ayaan ka tegay maraykan waddankii madi waaya arrinkii waan kuusoo sheeka dhafay madaxweynaha puntland wuxuu noogu yimi maraykan minneapolis waa tahay 2009 waaya waxaan ugu tegay hodheel doontoonka oo kusoo degay madaxweyne arrinkii baanu kala hadalay aniga iyo inaan walaalnimo joogto minneapolis wuxuu yidhi nimankaa waa la xukumay waana la dilay annagoo la joognay ayuu wuxuu la hadlay xeerlaaliyaha guud waaya maxamuud xasan sheekh cismaan waaya wuxuu yidhi maxaa loo dili waayey nimankii anigu fulintii waan qoray oo intayna fulinta iyo go-aan kaa gaadhin maxkamaddu markii ay nimankii ku xukuntay dil ii sharax waxaa dib u dhigay in nimankii la dili waayey yaa ka hor yimi okay waxaa ka hor yimi guddoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka gobolka Puntland Puntland oo dhan guddoomiyaha maxkamadda sare cabdulqaadir sheekh axmed maxamuud muxuu ninkaasi markaa ka dhigtay qiil wuxuu ka dhigtay rafcaan bay qaateen nimankii la dilay baa rafcaan qaatay buu ayuu qiil ka dhigtay waa tahay okay qiilkaa waan ka daba tegnay waanu soo afjaray inuu yahay qiil beena oo aan raad iyo sal midna lahayn waay cadeymihiisana waan hayaa documentiga waxay igu jiraan boorsada horta intaynan documentska iyo cadeymaha eegin baashow waxa maanta aada u doodeysaa ee aada u hadlaysaa ma dilkii walaalkaa loo geystayba oo walaalka baad u doodeysaa way su-aashaydu mise cadaaladda ka jirta Puntland ayaad ka hadlaysaa waxaad leedahay tan qura maahay dhacdooyin fara badan oo noocaas oo kale ah ayaa ka dhaca had iyo jeer Puntland maya walaalkii keliya u doodmay waxaa ka dhaca dhacdooyin noocaas oo badana oo aan hayo cadeymaheeda marka waxaan u doodayaa cadaalad darrada Puntland baan ka hadlayaa inta lagu sameeyo baan u hadlayaa may tusi kartaa waraqahaga mid ka mid oo ka hadlaysa in la dilo labadaa nin oo dilka lagu fuliyo taas oo kale okay waraqdu waxay ka soo baxday Soomaa xilligaa warqadu waxay ka soo baxdayaan warqad kaliya ma oo maamulka Puntland warqado badan maamulka Puntland adaa tagay oo dabeetana xafiisyada kala soo baxay anaa kala soo baxay waaye okay in yari tulqaada tababan waaye aad sheekadiisii wadid inta waraqdana baarisid waraqahan dacwadda markaa ma u gudbisay hay-adaha dawladda maamul goboleedka Puntland aad iyo aad meel aanan geyn male hay-adahoo dhan madaxweynahan ka bilaabay baarlamaankan ku xijiyey waxaan u gudbiyey xeerlaaliyaha guud ee Puntland baashow ilaa sanadkii 2009 waxaa kasoo wareegay 4 sanadood 4taas sanadood hawshan maxay sida ugu dahday oo aad wax uga qaban weydeen maxaa wax looga qaban waayay waa cadaalad darrada Puntland weeye taas warqadan waxay ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Soomaa sida qoraalkan ku qoran waxay ku socotaa madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole ujeedadan waxaa ku qoran codsi ogolaansho fulin dil mudan madaxweyne marka xeer ilaaliyaha soo qoray Soomaa xeer ilaaliyaha soo qoray madaxweynaha sida halkan ka muuqata shaabadii waxaa ku taala xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka Puntland Dr. Maxamuud Xasan aw Cismaan marka wuxuu leeyahay xeer ilaaliyuhu xafiiskani waxa uu ku weydiisanayaa madaxweynuhu waa sida meesha ku qoran sida uu sharcigu qabo in aad soo ogolaatid in xukun dil ah lagu fuliyo dil sugayaasha kala ah Axmed Maxamed Maxamuud iyo Bashiir Maxamed Ciise oo maxkamadda shariicada islaamka ee aad sida ku meel gaarka ah aad u magacowday ay ku riday xukun dil ah kadib markay ku cadaatay in ay si bareera u dileen guddoomiyihii gobolka Karkaar Yaasiin Saciid Xuseen ayna maxkamaddu ku xukuntay xukun dil ah warqadan baashow xeer ilaaliyuhu uu madaxweynaha u soo qoray jawaabtii madaxweynaha ma heli kartaa oo madaxweyne Faroole soo qoray waayo aan ka bilaabo marka istaamka ama shaabada ku taala Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud madaxweynaha dawladda Puntland ayaa ku saxeexan shaabadiisana ay ku taala waayo xafiiska madaxweynaha ayaa warqadan ka soo baxday ujeedadana waxa ku qoran fulin aan raahdo fulin dil qasaas ah markaan kasoo gudubno tixraaca waraqaha la soo tixraacay waxaa ku qoran tixraaca xukun maxkamadda darajada koowaad ee degmada Qardho oo ka hawlgashay shariicada islaamku lambarkeeduna intaa yahay dil toogasho ah waxay ku xukuntay gacan ku dhiglayaasha kala ah Axmed Maxamed Maxamuud iyo Bashiir Maxamed Ciise si warqadii hore ku qoreed haddaba sida ku cad sharciga Puntland waafaqsana shariicada islaamka ayuu yiri madaxweynuhu waxa madaxweynaha
puntland uu ogolaaday in lagu fuliyo dil qasaasa gacan ku-dhiglayaasha la kala yidhaahdo axmed maxamed maxamuud iyo bashiir maxamed ciise sida ay go-aamisay maxkamadda darajada koowaad ee degmada qardho ee ay ka howlgashay shareecada islaamku si ay xukun uga gaadho markaasi faldambiyeedka ka dhacay tuulada dhudhub ee gobolka karkaar kadib markii maxkamaddu u caddaatay taariikhdii bishii abril ama afraad 16keedii sanadkii 2009 in rasaastii labadaasi eedeysane ay burburkooda ay baabuurka aan idhahdee ka soo rideen ay markaa dishay marxuum yaasiin saciid xuseen isla markaasna ay dhaawacday maxamuud cabdi maxamed iyadoo isla markaasna khatar gelisay dhammaan odayaashii waxgaradkii u fadhiyey maslaxadda nabadda goobtaasi warqadda waxaa ku cad sida ay muujinayso baashow in madaxweynuhu ogolaaday in la fuliyo dilkii oo la dilo nimankii yaa diiday okay kadib waa tan warqadii loo qoray gudoomiyaha maxkamadda sare ee la lahaa dil markaa weyn waayo warqadda haddaan iyadana soo gaabiyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud baa ka soo baxday marka xeer ilaaliyuhu markaa ujeedada wuxuu ka dhigay ku wargelin xukun dila waxay ku socotaa maxkamadda sare oo iyadu weli diidan in nimankaasi la dilo si kastaba ha ku diido maxkamadda shareecada islaamka ee sida kumeel gaarhka ah uu madaxweynaha dowladda puntland maamulkeeda uu ku magacaabay wareegto lambarkeedu 7 ee la qoray 28 bishii afraad sanadkii 2009 waxay maxkamaddu dil ku xukuntay dil sugayaal kale ah axmed maxamed maxamuud iyo bashiir maxamuud ciise haddaba sida uu qabo qodobka 248 sa af soomaali marka lagu akhriyo xafiiskani waxa uu maxkamadda sare weydiisanayaa inay samayso muddayn fulinta amarka ayna markaasi cayinto taariikhda iyo xilliga iyo goobta ay fulintu dilkaasi ay ka dhacayso waxaa soo qoray sida halkan ku cad shaabadda iyo saxiixba ku qoran xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka puntland dr maxamuud xasan aaw cismaan maxkamaddu maxay ku jawaabtay markaa maxkamaddii sare markii la yidhi intaasaan ka codsanaa inaad dilkaa muddadiisa sheegtaan xilliga la dilaya nimanka iyo goobta lagu dilayo iyo taariikhda la dilayo maxay kusoo jawaabtay si bareera oon waxashnima oo qaawan ayay u hor istaagtay una diiday iyadoo leh rafcaan bay qaateen beena oon waxba ka jir iyaa soo qoray warqadda markaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka cabdiqaadir sheekh axmed maxamuud warqadda ma haysa iyada warqadii rafcaanka tan uu diiday uu leeyahay rafcaan bay qaateen warqadii rafcaanka halkan ku jirtaa laakiin jawaabihii waxaan hayaa ay maxkamaduhu ka jawaabayaan rafcaanka beenta waayahay iyadina waan hayaa tus mid tilmaamaysa in rafcaankaa la diiday waayahay xafiiska xeer ilaaliyaha ka soo baxday iyaduna maya waxay ka soo baxday maxkamadda waxay ku socotaa raalli hada waxay ku socotaa xafiiska xeer ilaaliyaha soo maha waayahay gudoomiyaha waxaa la ogeysiinaya markaasi garsoorka ujeedadu waa caddayn iyaduna waayahay muhiimaddu waxa weeye waxay caddaynaysaa in xafiiska maxkamadda darajada koowaad ee gobolka karkaar qardho oo markaasi gal dacwadeedka xukunkii dilkii gobolka karkaar ka dhacay wax rafcaan ah oo soo gaadhay inaanay jirin qoraalkii ku taariikhaysnaa 13 bishii shanaad 2009 maaha mid ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee qardho warqadda rafcaanku maaha mid ka soo baxday maxkamadda qardho siday sheegayso gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka qardho ayaa soo qoray nin la yidhaahdo sheekh saciid ismaaciil axmed kii rafcaankuna waa ka weliba maxay tahay tan markaa iyana waa rafcaanku sii beeninaysa xoojinaysana inaan wax rafcaan la yidhahda jirin waayahay waxay ku socotaa xeer ilaaliyaha guud tixraaca waraaqda lambarkeeda iyo marka laga soo tago mudane xeer ilaaliya waxay maxkamadda rafcaanku ee gobolka karkaar uu idin caddaynaysaa inaanay jirin wax rafcaana oo lid ku ah xukunkii ay soo saareen guddigii galay kiiskii ka dhacay tuulada dhudhub ee uu ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee gobolka karkaar waayahay marxuum yaasiin saciid xuseen ilaahay hoo naxariista sidaas daraaddeed waxaan mar labaad aan idin caddaynayna inaanay jirin buu yidhi wax gal dacwadeeda oo maxkamadda darajada koowaad ay u soo gudbisay maxkamadda rafcaanka oo markaa ku saabsan kiiskaasi waxaa warqadan soo qoray garsoore sheekh buux maxamed farax maxkamadda rafcaanka darajada koowaad ee gobolka karkaar ayaa shaabadeedii ay ku taallaa iyo saxiixaysa okay waan ku daarinayaano weli sii wata tii xeer ilaaliya uu ka qorayna waata adoo raalli cali xareera waayahay warqadan maxay ka hadlaysaa rafcaankii beentaa bay ka hadlaysaa isagoo ku eedeynaya guddoomiyaha maxkamadda sare
maxkamadda sare qaraarkeeda waxay ku caddaysay inay ogaatay in galdacwadeedka uu yaallo maxkamadda rafcaanka ee boosaaso waxayna ka dalabtay in si degdega loogu soo gudbiyo galdacwadeedkaasi ku taariikhaysnaa 11 bishii 7 ee 2019 ayna ogolaatay in galdacwadeedkaasi markaasi uu ku jiro rafcaan maxkamadduna waxay qaraarkeeda soo saartay 13 bishii 6 sanadkii 2019 halkaas waxaa ka soo baxaya qaraar markaasi isburinaya caddaynayana goorta uu soo gaadhay rafcaanka iyo meesha loo qaatay rafcaanka oo ah boosaaso taasoo ah arrin khalada warqadani way dheerta laakiin waxay ka hadlaysaa in taariikhda rafcaanka la qaatay iyo taariikhda galdacwadeedka loo soo gudbiyey maxkamaddu inaanay shaqaba isku lahayn taana waan gartay ka soo gudub cadamaha waraaqahani faraha badan leh baashow ee aad sidatid si markaasi dacwadii cadaaladda aad u gaadhid yaad u gudbisay oo aad hor dhigtay waxaan u gudbiyey xafiisyada ugu sarreeya maamulka Puntland yaa ka mid ah xafiisyada baarlamaanka waa tahay maxaa kaaga soo baxay baarlamaanka markaad hor dhigtay baarlamaanka markaan hor dhigay aan horgeeyey runtii rag badan baa ka dhiidhiyey oo arrinkaa ka xumaaday cadaalad darrada ah waxaa ka mid ahaa ninkii ugu hadalka caddaa alla yarxamo cabdisalaan sheekh maxamuud saciid fay xildhibaan buu ahaa xildhibaankii baarlamaanka la oran jiray sheebe lagu naanisi jiray alla yarxamo ninka laftiisa in la dilay baan u malaynayaa ha waan kuu soo wadaaye iga sug waay kadib warqadaha markuu akhriyey bartiiba wuxuu ka yidhi cadaalad darrada intaa leeguma dulqaadan karno maadaameynu nahay baarlamaankii waa in loo yeeraa intaynu fadhino guddoomiyaha maxkamadda sare waayo ninka noocaasi xil uma qaban karo ummadda waay kadibna xilka laga dhigaa buy maxkamaddana la hor keeno buu xaqu leeyahay ninkaas alla yaarxamo ninku hadalkii uu yidhi isla 4 days gudahoodna waa la dilay alla yaarxamo sidiiba ku dhintay hadalkiisiiba ku dhintay ma hadalkaa daraadii baa loo dilay markaa anigu saasaan aaminsanahay shakhsiyan waa sidaad u aaminsantahay anigu aan aaminsanahay waaya intii dacwadda aad ku jirtay ee aad marba maraykan ka tegeysay ee aad puntland tegeysay garowa tag boosaaso tag dabeetana xafiisyada dacwadda waraaqahan hordhig wax dhib oo adiga kusoo gaadhay ma jiraan waa la xiray xataa booliska garowe baa la geeyey waay waxaa laygu geeyey kadib markaan meel walba geeyey warqadaha ayaan gaarigii aan watay gaari maarkid aan watay meel walba kaga dhejiyey shaabadda madaxweynaha fulintiisa maxkamadaha xeer ilaaliyaha gaarigii baan ku sharxay waraaqaha gaarigii baan waxaan hor dhigay baarlamaanka madaxtooyada markaan ka dhaqaaqayna hudheelkayga seexanaya u socdaa hudheel la yidhahdo maka almukarama oo ku yaalla garowe ayaa waxaa gaari laangarusar gawaaridan ay yidhahdaan leyla calaawa laangarusarada ayaa askari ka soo yaaceen isweer baaba layga qabtay war sidee baan idhi waa la xiray booliska la geeyey makhrib ayaad xilligaas waayahay marka booliska la geeyey waxaa joogay nin la yidhahdo afdalow ayaa saldhigga booliska joogay waaya ninkii baa yidhi igu yidhi waa maxay waxani hay weydiin akhri baan idhi waaya warqadaha wareyso aniga waxba hay weydiin habeen bay ahayd toosh buu soo qatay warqadii buu ku ifiyey tooshkii wuxuu ka bilaabay tii madaxweynaha fulinta waa tahay wuxuu ku xijitay xeeraaliyaha kuwii maxkamadaha kadib markuu akhriyay wuxuu yidhi niyo ku xirmaya warqadahana kulli waxay ka soo baxeen maamulka Puntland ma aha waxaad samaysatay adigu laba arrimood bay noqon kartaa inaad shacabka kicinaysid iyo dembi lagaa galay cadaalad darro lagu sameeyey ayaanu arkaa arrinkaa waaya kumana xiraye warqadaha gaariga ka fuji hudheelkaagina ku noqon arrinkeena madaxweynaha inuu la tegaya u geynay waaya su-aal kale aan ku weydiiyo baasho dadka ku daawanaya sidee baad uga dhaadhicin kartaa in sida waraqaha waa caddaanayaan madaxweynaha Puntland Farolana uu yidhi hal la fuliyo dilkii gacan ku dhigilayaashaasi dilay walaalka gudoomiyihii hore gobolka Karkaar Yaasiin Saciid Xuseen hal la dilo nimankaasi warqadaha uu soo qoray gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland Cabdiqaadir Sheekh Axmed Maxamuudna uu hor istaago diiday dadka sidee ugu sharxi kartaa in awoodii gudoomiyuhu ama gudoomiyaha maxkamaddu ay ka awood badan tahay tii madaxweynaha sidee bay u dhici kartaa waxaan ugu sharxi karaa waa markhaanti madoonto waa wax cad waayo waxaan ugu sharxi karaa warqadaasa caddayno ah fulintii madaxweynaha waa tan miiska hortaada saaran 4 sannadood iyo dheeraadna lama dilin caddayn intaasaa dadweynaha ugu filan inuu gudoomiyaha maxkamadda sare ka awood badan yahay madaxweynaha waa su-aal taal madaxweynaha ilaa isaga madaxii u sareeyay maamulka Puntland xabsiyada Puntland oo kale intii aad joogtay wadanka ma jiraan cases ama arrimo noocan oo kale ah dad ama lagu been abuurtay inay wax dileen oo xidhan ama dilka lagu fuliyo ama aan lagu fulin
iyo kuwa gacan ku dhigilayaal oo dilal geystay oo aan dilalkii lagu qaadayn oo weli lagu naasnuujinayo xabsiyada noocaasoo kale ma ka markhaati kici kartaa baashow ma aragtay ma maqashay goobjoog ma ahayd ها إن بدن waxa markhaanti ka ah oo cadaana dadka la xirxiray ama 13 kii la toogtay ama kuwa dad badan oo waxa jira laga soo qabtay suuqa iyagoo maraya aan waxba dhimin lagu eedeeyay waxa kale oo jira dad toogasho loogu xukumay nin dambiilaa bay guri ka kireeyaan waa cadaalad darrada Puntland isaguna aanu ogeyn in dadka ay dambiilayaal ninkan gurigiisu waa forrent ninkii doona kireysan kara waatay lama oran war maxaad uga kireysay arrinkii baaritaan laguma sameyn gurigii buu ka kireeyay ninkan ma boqon ninkan lacag buu doonaya gurigani waatay rag noocaas guriga ka kireeyeen dad la qabto dambi loo haysto oo haddana toogasho lagu xukumay waa cadaalad darrada ugu waaweyn bay ka mid tahay waayahay nimankii dilay walaalka ama gudoomiyihii gobolka Karkaar gudoomiyihii hore Yaasiin Saciid Xuseen waxay ku jiraan xabsiga madaxweynihii warqadii uu soo qoray fulinta ahayd waa loo joojin waayay maxaad is leedahay ciqaabtaasi goorma ayaa cadaaladooda iman kartaa wallaahi kulley waan sugaynaa waayo 4 sano iyo barkaba waayo taa waxa cadaynaya waan sugaynaa mar un baa cadaaladu iman waxa jirtay nin lagu qabtay gobolka Bari Puntland loo qabtay inuu cid dilay gacan ku dhigli maxkamad baa la soo taagay cadaalad darrada toogasha lagu xukumay in la dilo isagoo dilidii loo diyaarinayo ayaa niman kale la qabtay nimankii baa qirtay ninka loo haystay inay dileen isagii baa markaa la sii daayay isagii baa la sii daayay 3 sanadood buu xabsiga ku jiray xaq darro loo haystay ninkaas waxba dhimin way dhici karaysa markaa in la dilo in la dilay ba diyaar loo laaba waayahay oo waliba ninkaas wuxuu kamid ahaa sida sheekada ku maqlay ciidamada Puntland waxay xaq u leeyihiin meeshii shil ka dhaco inay amniga sugan yimaadaan ninkii ugu soo horeeyay goobta yimi buu ah baashow waayahay si fiican ma fahmay baashow eedaada u weyn iyo tuhunkaaga u weyn ee aad leedahay cadaalad darro weyn baa ka jirta dhinaca maxkamadaha Puntland ma waxaad tuhsan tahay in maamulka Puntland ay ka mas'uul yihiin oo mas'uuliyadda ay qaadayaan mise waxaad leedahay hal nin oo gaar ah ama gudoomiyaha imka aad sheegayso kale ha noqdo ama qayb maxkamadaha ka mid ah ha noqotee cid gaar baad u aanaysaa eedda yaad u aanaysaa eedda waxa weeye yaa ka mas'uula waxa sideedaba nin baa geystay oo ka mas'uula oran mayo maamulka Puntland oo dhan baa ka mas'uula waata sababta ay uga mas'uul waxa weeye shakhsi uu khaldami kara maamulku haddaanu mas'uuliyadda la qabin ninka waxbay ka qaban lahayn hor istaagan gacan ku dhigliyaasha marka maamulku uu la qaba markan ka reebo xeelalaaliyaha guud oo warqadaha ku cadeeyay dhaliisha maxkamadda sare way okay maamulka Puntland haatan maxaad ka codsan lahayd maxaad oran lahayd waxaad ka codsan lahaa maamulka Puntland anigoo dalkayga jecel dadkaygu waa Soomaali dalkayguna waa Soomaali meel kasta joogaan waxaan ka codsanayaa cadaalad shacabka reer Puntland markay ku daawadaan sidee ku arkayaan ma inaad kicinaysid reer Puntland oo aad cadaaladii tusaysid cadaalad darradii mise waxay u arkayaan arrin dhacdo inta badan ka dhacda Puntland oo aan wax weyn ahayn in qof wax dilay la soo qabto dabeetana la dili waayo arrin caado ka ah oo aan dhibaato weyn ku haynin reer Puntland oo kale ma sidaasay u arkayaan mise waxay u arkayaan ka baashi ahaan nin doonaya inuu dadka kiciyo nin mucaarad ku ah dawladda ama xeerarka maxkamadaha ee Puntland sidee bay ku arkayaan markay shacabku sidan oo kale ay ku daawadaan aad ka hadlaysid waraysi noocan oo kale bixinaysid shacabka Puntland aad baan ugu hambalyeynaya waa shacab aad u sharaf badan nabadda jecel cadaaladda jecel way shacabka Puntland waxay arkayaan nin xaqiisii ka maqan yahay 5 sanadoodna la hor taagan yahay cadaalad darro way dhibanayaasha adigoo kala ama dadkoodii hadalaya ama si kale cadaalad darro ugu dhacday iyaga maxaad oran lahayd iyaga waxaan oran lahaa hadla oo cadaaladda media ama saxaafadda ha aamusina u sheega cadaalad darrada la idinku sameeyay marun baa cadaalad u iman oo gaarsiiya dadka baasho haddii la dhageysan waayo kii wax dilay ee sida imika aad tilmaamaysa aad u amaal cadaynaysa waraqaagu ninkii wax dilayba haddii aan la dilayn oo dilkii lagu fulinayn sidee baa loo dhageysanayaa nin hadlaya oo cadaalad darro ka hadlaya sidee wax lagu qaban karaa wallahi inta dhegeysanaysaa badan marun bay iman
ha gaarto ha dhowaato ha dheeraato ha dhowaato ha dheeraato واضح xilli ay noqotaba marun baa cadaalad ان وقتك انو غير اويس باشا ugu dambeyntii maxaad oran lahayd maxaad ku soo gabagaban lahayd barnaamijkaagan iyo arrinkaagan xagee baad isleedahay ayuu ku dambeyn doonaa wallahi horta meeshii ilaahay dhigo unbuu ku dambeyn doonaa oo ilaahay baa og waxaan ku soo gabagabeynayaa maamulka Puntland ama madaxweynaha Puntland maadaama la hayo fariinta shaabadaadii fulintaadii digreetadaadii de madaxweyne dhan oo digreetadiisii socon weyday dhibkeedu leey waa waxa hadda ka taagan Puntland haddii digreetadii ama amarkiisu soconaya anigu waxaan aaminsanahay waxa hadda Puntland arrimaha xasaasiga oo ka taagan kamay taagnaadeen hadduu soconayo in yar baan kusoo mamaya waxa laga yaabaa Allah naxariistay Maxamed Siyaad Barre xukunkiisa baan in la oran jiray Faarax Gululi ayaa wuxuu arkay rag badan oo mucaarad ku ah Maxamed Siyaad Barre markaasuu isugu yaro caano dhayo shooyay cab waa sidee way macaan buu liin buu kala gooyaan oo soo koobay hadalka markaasuu ku tujiya way go'aan hadalka biir madaxweyne waa dhayda laakiin ragga ka hooseeya goynaya madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Faroole waxa leeyahay sharaf fad lahayd oo cadaalad ku dadaasho fulintii baad qortay waxa goynayo liinta ku toojinaya waa gudoomiyaha maxkamadda sare degdeg wax uga qabo hadalkaygiyo koob haddii hawsha waxba lagaaga qaban waayo oo ay noqoto biyo coldaanshay baasho waa maxay tallaabada ugu dambaysa leedahay qaadid wallahi taas waa mid siri ah waaya wahagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay baashe Siciid Xuseen ayuu kaasi ahaa markaasi oo aanu ka wareysanaynay dhacdo hore uga dhacday Puntland bishii afraad 26keedii sanadkii 2009 daawadayaal xilligaasi oo la dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Karkaar Yaasiin marxumaan dhahde Yaasiin Siciid Xuseen oo isagoo markaasi u kala dab qaadayay laba beelood oo colaade ay ku dhex martay agagaarka gobolka magaalada Qardho ee iyadu caasimad u ah gobolka Karkaar xilligaasi oo nimankii dilkaasi geystay la soo qabtay la xidhayna muddo 4 sanadoodana markaasi iyagoo xabsiga ku jiray oo aan dilkoodii la fulin aad iyo aad baad umahadsan tahay baasha Siciid Xuseen tan iyo kulankeena dambe daawadayaal waa Cali Cabdi Xalaare oo dhamaantiinba idin leh isma dhaafno